shaqaysta la yidhi xoolo iyo carruur iyo wax walba way helaysaan hadda waa astaqfir allah halay sheegayna niyaro Soomaaliyeed oo muslima oo Mareykan joogo shaqaysta oo yidhi maalintii 2,000 astaqfir allah baan sameeyayo wax haba yaraatee nolosheedii soo hortaaga ma jiraan hooyaday baan maalintii dambe way dukaan haysato waxaan ku yidhi hooyo haddaad laftaadu astaqfir allada badiso dukaanka ugu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu baaba camirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa layna barayaa asbaab kale aan ahayn asbaabtan maadiga aynu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbu samaawaati inuu labadaba isaga qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isaga dhigay maca dalika isaga ana ka talaabsan kara ولذلك بقى كراماتك هي معجزاتك هي وحاصل دم وام حي وقانون كان نقانو لقى تلابسنا يدي كرامته هو وحين ونقانيو لقى تلابسنا ولذلك سورة دني وحين برس أمريكا فتن كدمانتيت هذي فتنة دينية هاي هي هذي مد مالتي هي هذي مد علمتها هي هذي مد سلطة هيبة إن لقى تلابسنا كره هذا سورة دني منهج كده فهمتي قفك سورة دنا أخرية أضاء له نور بالليل نور بالله إفيا وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله إفيا وحلنا سورة دتني وحي بريسا قفك مسلم كا نلش وحلنا وح عجبه وحلنا مشكلات كأهرية هذا وحلنا هاي مبدية وقلق بيلانا وحي سورة دنا كبريسا سكينة ده حسلوني ده يطمئنين ده iyo haddaad suuradda tan akhrido in qalbigu ku xasilo oo aanay waxaas ku argagax gelinin laa xoog gaal baa ku argagax gelinaya wala dhaqaalay ka badanayaan baa ku argagax gelinaya wala dunidaanu maamulaa baa ku argagax gelinaysa waayo waxaad rumaysatay rabbu samaawaati wal ardi inaad ku xidhan tahay oo ku taxantay walidaalika ayuha alaxiba haddaynu isnaana suuradda ka warrama runtii wax badan baynu sheegi karnaa أنا إن قصص كمدنا ما إن تفصيل تفاسير تقول لك تعالوا ليدي تفصيل